These two legends horta waa markii ugu horeysay kulmaan wallahi. First time ay hees isla sameeyaan wallahi heestan aad bay ugu raxsan tahay aniga waa cimaamada heestan gabdhaha kuwa shidan aniga ii keen isbuucu dooranaya gabdhaha shidan hada shidantaa dhankiisa aad amulahi calaykum wa salaam dhamaantiina meel walba dunida ka joogtaan waa walaalkiina boofin soo idin soo dhawaada mar labaad soo dhawaada mar saddexaad soo dhawaada iyo mar afraad fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar si ay dhiirigelin loo noqoto mar waliba muuqaal cusub ku soo dhignaa asxaabi haddii aan barnaamijku gudagado maanta sida ciwaanka ugu soo aragteenba waxaan rabaa inaan reaction ka bixiyo hees cusub ay soo qaadeen The Two Legends waa labada fanaan oo Soomaalida ugu shidan labada fanaan oo kale ah Wizz B iyo Ilka Casa hees cusub oo xal keeneen anigana waa idin suurtagal weysiin aan xal soo duubo muuqaalkan sidaa darteed maanta ayaan diyaar u noqday inaan soo duubo let's go. The Two Legends heestan Ilka Casa channelkiisa markuu soo dhigayay waxba maysan ku qorneen direct anaa hagaaji anaa kanaalkiisa soo dhigtay sidaa darteed isla ayadaan reaction ka bixinaya mulkiilaha TikTok baan nahay prank maaha meeshu doona ka shidaanahay prank maaha magaciisa shanta xidig yahay prank maaha light camera action istoosigu hadda heesta eeda dhan waxay ka sheekoonaysaa TikTok inuu isticmaalo ku soo laabanaysaa shanta xidig haween madow oo mugdiya dadka badankooda way jifaanku yani xilliga live-ka ay soo galaan habeenkii sidaas yani TikTok uu ka hadlaya live-ka habeenkii ay soo galaan haddaad shito TikTok shito nalka shito yani macnaheedu waxa weeye habeenkii markay dadkan live-ka soo galayaan nal baad shidanaysaa oo sida wejigaada loo arkay ileen habeenkii lisma arko so TikTok live-ka u shidanaa fanaankan inta badan wuxuu ka sheekeeyaa hiddi iyo dhaqanka sababtoo ay mar waliba heesiisa marka aragta lagama waayo hiddi iyo dhaqanka hadda wuxuu sheegayaa geeli iyo waxyaabo uu ka hadlayaa wax yar reactionkan wax yar oo soo ceshinaa sugaysta meesha aan dhaftay wuxuu yiri dhammaan shacabka dhan shanta shay isla helay shacabkan shanta shay isla helay ma ba ka saay laakiin wuxuu sheegayaa shacab shan shay isla helay haye goobta buuxda oo camirin gabdhaheena noo camiray kuwa jooga gulay iyo geedalay dhankeedii aniga magaaladaas baba qaan way magaaladaas hadda ka hor wiligay ma maqlin war adeenka comment igu soo sheegay bal magaaladaas wiligay maan arag maan maqal marka comment igu wadaag magaaladaas salaatmis waxa prank ma ku hayna waa dabanan only legend Wizz B so asaga heesta codka dambe ilahay asa hadda soo galay Wizz B hadda hadlooy libaxa keentay waa kan sug Ilka Casa muxuu yiri dhaxalkan adaa iskala wadaaya mar fankan dhaxal male adeer abti fankan brother waxa isku Soomaaliya oo idil sida hadda legend ay dhahayaan Sharma Boy marka Ilka Casa waa laga tagay adeer ay ninkan raabku ka soo hawlaa gabdhaha
gabdhaha kuwa shidan aniga ii keen isbuucu dooranaya gabdhaha shidan hadda shidan tahay dhankiisa aad These two legends horta waa markii ugu horeysay kulmaan wallahi. This is the first time I heard isla sameeyaan. Wallahi heestan aad bay ugu raxsan tahay. Aniga waa cimaamada heestan. Cimaamadeedu waa dhigana adeer. Wallahi billahi been maaha. TikTok heesta adiga iskale war huwa heesta aniga kala kicdon. Subscribe isaare maxaa sugaysaa? Ina abti. Ina ay aday ku taala.